بقول كي كن جرام أنت إيه صادق والولاية حقي ولاده إيه ليس هاي وحاس وحجر مع الشريعة ما كي لقى هذا مرك رنتي وحجر وحياة وبدن وبها رنتي بلشاد إن لقوا وعي جليو مثلا وحاكمته قيسسك وحد أركيسا جبر بالفوريا عرورتين وفوريا هذا عرور ما فور مايان ومشكلة waxay kamid tahay dhibaatooyinka bulshada ay ku dhaxleedahay arintaas marka bulshada in la wacyi geliyo oo ma arkaysa tawciyada in la badiyo aad bay munaasab u tahay ragga markay guursanayaan in la baro fiqhul usra sidee wax u dhaqi lahaayeen sidee wax u maamuli lahaayeen xuquuqu zawjayn labada dhinac in aad loo fahmo hadii kala qajajac gurigaas kama dhamaanayo waxaan muku daraa geedi ma fadhiyaa mise wuu baxay ما شاء الله marka runtii zawaajku waxa jiro waxyaabo badan baa iga guuxayo laakiin inta wadi karto ما شاء الله waxaad arkaysaa runtii ninkan wax ma baranayo wuxuu u fahmayaa markii gabadha lagu nikaaxo ama lagu meheriyo inuu milkiyayba inuu yeeshay uu milkiyay uu hantay لكن سيدا صحدا وحاوى شريكة في الحياة أيهينو نولو شيء كوبا داغان وحملكين لي هذا ما يشمتالو ددبا وحا دقانو قبلها مركي قورسادان الدون اوكلا إني كدكتان لأنه وحبو ما يقانو وحو هايستا إنو ملكيي مركاسو قراعيا وأفلقا ديغنيا قراعيتانك وحا اوغو دارن قبلها قاركو دي نفسيا أهان أيو قدي ويابا مورك أيو كدي ليا نبي حاسس كيس عليه الصلاة والسلام إلهي مركو تلماما وحير ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن قبلها نبي إني مرجان معها إن دمان تود أيرالي نقدان مركا قبلها بروك توالق إلاليا دواتا توالق إلاليا قراعنا والق إلاليا ددبا وحا دقان قبر قر لقب تبالي قنفور لجبش إلادهي خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي waxaa idinku khayr badan kan xaaskiisa ehelkiisa u roon anigana waxaan ahay kan ehelkayga ama xaajiyadeeda ama xaaskayga u roon ayaan ahay maalin baa ummuna Caaisha radiyallahu ta'ala anha caatay ahayd markii hore wuxuu ku yiri kaali orod ayaan isugu bixinaa way orotameen Caaisha ka orod badisay bacda sanawaad Caaisha hilib yara fuulay markaasuu ku yiri nabiga kaali had aan orod isugu baxnay way orotameen nabiga ka badiyay sallallahu alayhi wasallam gabdhaha in laga badiyo ma jecla xoogaa wajigeeda wax buu ka dareemay markaasuu ku yiri khaatirkeedii dareenkeedii ayuu doonayaa inuu ilaaliyo wuxuu ku yiri haadihi bitilka midaan hadda aan ka badiyay u qaada tii hore aad iga badisay gabdhaha waxay u baahan yihiin in la koolkooliyo la ilaaliyo anjasha ayuu ku yiri nabiga sallallahu alayhi wasallam yaa anjasha rifqan bilqawaariir gabdhaha waa dhalo dhalana wuxuu u baahan yahay in la ilaaliyo haddaadan ilaalin dhulkoo bash ku dhahaa waa jawaa mana la aruurin karo marka waxa weeyaan kulamo badan insha Allah oo munaasabad badan baa isugu imaan doona wa sallallahu ala sayyidina Muhammad